daawada haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqato janaalkeena xigmadyahan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto sidoo kalena aad furto gambeelka si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee mar waliba hela muuqaaladeena cusub sidoo kale ha ilmaamin inaad like share iyo comment aad inoo siiso muuqaalkan mahadsanid weligaana guulayso naag wariye ah ayaa soo booqatay guriga naag waayeel ah waxayna wax badan ka weydiisay arrimaha qoyskeeda iyo xiriirka jacayl ee ka dhaxeeya iyada iyo saygeeda waxayna ku tiri waa maxay sababta uu ninkaaga kuu jecel yahay ma inaad ku wanaagsan tahay cunto diyaarinta mise quruxdaada mise carruurta aad u dhalayso mise waxyaabo kale naagtii waayeelka ahayd ayaa ku jawaabtay helidda farxadda lamaanaha waxay ku jirtaa gacanta Ilaahay ka sukowna waxay ku jirtaa gacanta marwada naagtu waxay awoodaa inay gurigeeda ka dhigato janno sidoo kale taa cagsigeeda hadhihin maal maxaa yeelay in badan oo ka mid ah dumarka hantida leh way murugaysan yihiin kumana faraxsana noloshooda raggoodiina way ka carareen hana dhihin caruur maxaa yeelay waxaa jira dumar badan oo dhala 10 canug nimankooduna aanay jecleen laga yaabay xitaa in la furo sidoo kale waxaa jira dumar badan oo ku wanaagsan cunto karinta maalinkii oo dhan jikada ku jira in badan ka sheegta habdhaqanka raggooda naagtii wariyaha ahayd ayaa aad ula yaabtay naagtii waayeesha ahayd waxayna ku tiri haddaba waa maxay sirta naagtii waayeesha ahayd ayaa tiri markasta uu ninkaygu xanaaqo waan ka aamusaa anigoo ixtiraamaya anigoo ka xun caradiisa iskana ilaali aamusnaanta ay la socoto fiirada jeesjeeska ah sababtoo ah ninku uu caqli badan yahay wuuna fahmayaa naagtii wariyaha ahayd ayaa tiri haddaba markuu sidaa u caroodo maxaad qolka ugu bixi weysay naagtii waayeesha ahayd ayaa ku jawaabtay iska ilaali arrinkaas maxaa yeelay wuxuu u malaynayaa inaad ka cararayso isaga oo aadan rabin inaad dhagaysato warkiisa kaliya waa inaad aamustaa oo aad aqbashaa wax kastuu ku dhahaayo intaa kadibna waxaan ku dhahayaa ma dhammaysatay dabadeedna waan baxayaa maxaa yeelay isagu waa uu daalay wuxuuna u baahan yahay nasiino kadibna howlahayga guriga ayaan qabsanayaa naagtii wariyaha ahayd ayaa mar kale tiri oo intaa kadibna waxaad ku dhaqaaqaysaa inaad xiriirka u jarto oo aadan la hadlin muddo isbuuc ah naagtii waayeesha ahayd ayaa tiri iska ilaali arrinkaas maxaa yeelay waa dhaqan xun waxaa dhici karta laba daran midkood isagoo u baahan inuu ku maslixeeyo haddana uu arko aamusnaantaada waxaa laga yaabaa inuu sidaasi la qabsado oo uu isna kaa aamuso ama waxaa dhici karta inuu arrintaasi ka sii qaado caro kale oo uu dhaqankiisu sii xumaado naagtii wariyaha ahayd ayaa tiri oo maxaa samaysaa haddaba naagtii waayeesha ahayd ayaa ku jawaabtay muddo 2 saac kadib ama ka badan waxaan u diyaarinayaa koob cabitaan ah ama koob kafee ah waan u geynayaa waxaana leeyahay hoob waxaana ula hadlayaa si caadi ah markaas ayuu weydiinayaa oo igu dhahayaa ma ii xanaaqsan tahay markaas ayaan ku dhahayaa maya intaa kadibna wuxuu bilaabayaa inuu ka cudur daarto hadalkiisii xumaa wuxuuna imaqashiinayaa hadal aad u qurux badan naagtii wariyaha ahayd ayaa mar kale tiri oo markaas ma rumaysanaysaa naagtii ayaa ku jawaabtay haa oo naftayda waan ku kalsoonahay doqonna maahi oo ma waxaad doonaysaa inaad rumaysto hadalkiisa isagoo xanaaqsan oo aan markaas rumaysan waayo isagoo degan naagtii waayeesha ahayd ayaa tiri haddii naagta laga dhigi lahaa shimbir waxaa laga dhigi lahaa daa'uus haddii laga dhigi lahaa xoolana waxaa laga dhigi lahaa sagaaro haddii laga dhigi lahaa cayayaanna waxaa laga dhigi lahaa balanbaalis laakiin waxay noqotay dad sidoo kale xaas la jecel yahay iyo hooyo wanaagsan waana nimcada ugu weyn ee ragga lagu siiyey adduunka haddii ay sidaas ahayna abaalgud ragga loogama dhigeen xurul cayn markay jannada galaan taasi waa xaqiiq waana gabar waxa ammaantaasi leh yaraanteeda waxay u noqonaysaa aabbaheed albaabkii uu jannada ka gali lahaa dhallinyarnimadeedana waxay ninkeeda u noqonaysaa mid dhammaystirta diintiisa
oo uu kaga badbaado sinada iyo macsiyada. hooyanimadeedana waxaa laga helaa jannada lugaheeda hoostooda. waxaa mahadsan ruuxa farxad geliya qalbigeeda iyadoo gabar ah, walaal ah, xaas ah, iyo sidoo kale iyadoo hooyo weyn ah. haddaba walaal, muuqaalka intaadan ka bixin waxaan kaa codsanaynaa haddii aad ku cusub tahay kanaalka inaad subscribe noo saarto, muuqaalkana aad like noo siiso. waad ku mahadsantahay dabcan daawashada muuqaalkan. muuqaalkeena muuqaalka xiga intaan kulmi doono waa walaalkiin cabdirasaaq cabdullaahi oo ku dhaafaya sida ay nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.